communicate waa la xiriiris. It was difficult to communicate with him because the weather was bad. Aad ayay u adkayd in isaga lala xiriiro sababtoo ah cimilada ayaa xumayd. It was hard to communicate with him because the weather was bad. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Welcome back. Haddii aad horey noola sii joogtay soo dhawow mar kale. Haddii aad nagu cusub tahay welcome, and please don't forget to like, subscribe and share. Ha iloobin in aad taabato like iyo subscribe iyo weliba in aad share dhahdo oo aad la wadaagto asxaabtaada iyo dadka kale ee u baahan ee ka faa'iidaysan kara. Cashirka maanta waxa uu ku saabsan yahay waxa la yiraahdo VERBS, ficilada. VERBS waxaanu nidhi waxa weeye action words, erayada oo tilmaamaya ficilka ama falsamaynta. Marka maanta waxaanu baranaynaa ilaa 54 ficil oo ka mid ah ficilada luuqada ingiriiska. Ficiladani waxa ay muhiim u yihiin ku hadalka iyo barashada luuqada. Ficiladani waa hordhac. Markaasi mar dhow cashirada soo socda waxaanu guda geli doonaa how to conjugate verbs, sida ficilada looga bedelo from one tense to the next. Markaasi cashirkii oo inoo bilowday waa kan. Erayga ugu horeeya accuse macnihiisa waxa weeye eedayn ama dacweyn. achieve waa helis ama hanasho. Jumlad haddii aynu gelino waxaa la dhihi karaa you can achieve whatever you want if you try hard. Haddii aad si aad isugu daydo wax walba oo aad rabto waad gaari kartaa ama waad heli kartaa. You can achieve whatever you want if you try hard. acknowledge waa garowsho ama ogolaansho. acquire waa helis ama helid. adopt waa la qabsi ama la qabsasho. Sidoo kale waxaa la mid ah erayga adjust. adopt eraygan iyo ka horeeya dhawaaqooda in yar buu ku kala duwan yahay, laakiin macnahooda aad buu u kala duwan yahay. Eraygan adopt waxa weeye sida marka aad cunug aadan dhalin aad soo qaadato oo aad mas-uuliyaddiisa la wareegto. admire waa u bogid. waxaad dhihi kartaa I admire your determination. Go-aankaada waan u bogay. admit waa qirasho, qof marka uu wax qirto. Sidoo kale eraygan macno kale ayuu leeyahay oo wuxuu noqon karaa isbitaal seexin. Qofka marka isbitaal la seexiyo waa la isticmaali karaa eraygaas. anticipate waa filasho. waxaad dhihi kartaa I did not anticipate to see you here. ma aanan filaynin in aan halkan kugu arko. Marka anticipate waa filasho. announce waa baahin ama ku dhawaaqid. apply waa codsi oo qoraal ah. Marka aad ama shaqo codsanayso ama aad wax kala codsanayso oo si qoraal ah aad ku codsanayso ayaa waxaa la yidhahdaa apply ama codso. noun ama magac haddii laga dhigana application ayuu noqonayaa arji. approach waa u soo dhowaansho. astonish waa la yaab ama la yaabis. attach waa ku dhejin. sida marka warqado sawir lagu dhejinayo ama warqado la isku dhejinayo ayaa la isticmaalaa eraygan attack waa weeraris ama weerar ku qaadis. attempt waa isku day ama isku dayd. attend waa ka qaybgal. attract soo jiidasho.
bite, bite, qaniin. Bend, bend waa laab ama laabis. Can you bend your knees? jilbaha ma laabi kartaa? Can you bend your knees? Break, break waa jabin ama jabi. Burn, burn waa gubis. Broadcast, broadcast waa baahin ama shaacin, khaasatan marka ama idaacadaha iyo tviyada laga sii daynayo ama laga baahinayo ayaa waxaa la isticmaalaa broadcast. Carry, carry qaad. Can you carry this bag for me? Ma ii qaadi kartaa boorsadan? Carry waa qaadis. Catch, catch waa qabo. Chop, chop waa jarjaris, sida khudradda oo kale marka la jarjarayo ayaa la isticmaalaa ereygan. Choose, choose waa dooro. Ereygan waxaa jira erey kale oo isku ay dhawaaq yihiin laakiin dhigaalkooda wuu kala duwan yahay, macnahoodana wuu kala duwan yahay. waa ereygan choose. ereygan ficil ma aha, waa magac, waa noun, laakiin meesha waxaan ugu soo daray ereygaas in aadan ku khaldin. waa isku dhawaaq laakiin macnahooda wuu kala duwan yahay. Climb, climb waa koris, sida buuraha oo kale. Who was the first to climb Mount Everest? Kumuu ahaa qofkii ugu horreeyey ee kora buurta Everest? Who was the first to climb Mount Everest? Commit, commit waa gelis, sida faldambiyeed. He committed a serious crime. wuxuu galay dembi halis ama khatar ah. Commit waa gelis. Communicate, communicate waa la xidhiidhis. It was difficult to communicate with him because the weather was bad. aad ayay u adkayd in isaga lala xidhiidho sababtoo ah cimilada ayaa xumayd. It was hard to communicate with him because the weather was bad. Compete, compete waa tartan, la tartamis. Complete, complete waa dhammaystir ama dhammaystirid. Consent, consent ogolaansho. Consult, consult la tashi. Convince, convince waa qancin, siiba qofka marka aad la hadasho oo aad hadal ku qanciso ayaa waxaa la isticmaalaa ereygan convince. Crawl, crawl waa gurguurasho. Creep, creep waa ugagaatamis ama ugagabasho si tartiib ah, shanqar la'aan. badanaa xayawaanka libaaxa iyo shabeelka iyo marka ay duurjoogta ugaarsanayaan way ugagabadaan. marka ereygan ayaa la isticmaalaa creep. Criticize, criticize waa dhaleecayn. Criticize. Determine, determine waa go'aamin. Discover, discover ogaansho ama aragti, siiba wax aan hortaan la arkin ama aan la ogaanin ayaa waxaa loo isticmaalaa discover. Discuss, discuss waa ka wada hadal, ka wada tashi ayaa waxaa loo isticmaalaa ereygan discuss. Distribute, distribute waa qaybin. Establish, establish aasaasid. Experiment, experiment tijaabo ama tijaabo samayn. Expect, expect filo ama filasho. Explore, explore waa sahmin, siiba inta badan meel aan horey loo degnaan jirin marka la aado oo la sahminayo waxaa la isticmaalaa explore. Exist, exist waa jiritaan. waxaad dhihi kartaa that does not exist. taasi
ma jirto. Enhance waa hagaajin oo sii fiicnayn. Jumlad haddaan gelino waxaan dhihi karnaa there are applications used to enhance pictures. Waxaa jira applicationo oo sawirada lagu fiicneeyo ama lagu qurxiyo. Marka enhance waa fiicnayn ama qurxin. Enjoy raaxaysi. Ensure waa hubin ama xaqiijin. Cashirkii maanta intaas aynoo joogo. Inta aynu cashirkan lamid ah ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.